بسم الله الرحمن الرحيم. metamorphic rock ayaan ka warramanaa labadii dhagax hore wuxuu kaga duwan yahay ee macdanta sameynayay ma aha mid original ah laakiin waxa weeyaan labada dhagax hore ee nili sentimentalka ama nili igneous oo ka originalka ahaa oo isbedel ku dhacay ayuu ku yimaadaa waxa keena ku yimaada dhagax hore u jiray oo ahaa igneous ama sentimental ahaa oo ayaa waxa ku dhaca pressure cadaadis oo magma ayaa dib ugu soo baxda cadaadiskaasi pressurekaasi iyo temperaturekasi ku dhacaya wuxuu kaga iman karaa dhulka hoose oo laafu noqon kara ama magmu noqon kara ama wuxuu kaga iman karaa xagga sare oo asteroid ama comet noqon kara kadibna dhagaxii hore u jiray ee igneuska ahaa ama sentimentalka ahaa iyo chemical ahaan uu isku bedelaa marka macnaheedu waxa weeyaan dhagaxii hore ee jiray ayaa isbedela oo dhagax kale noqda kelmadda metamorphism la yiraahdaa waxa marka hore laga keenay Greek waxa weeyaan change isbedel baa la yiraahdaa macnaheedu qaabkii baa isbedelay dhagax hore haysatay oo sandstone ah sandstone-kii meesha uu ka baxay maxaa yimi ka dhalatay waxa kale oo kala duwan nooca falgalka uu la sameynayo metamorphism nooca pressure-ka ama cadaadiska temperature-ka ee magmada soo baxaysa hore u jiray ama qaybta sentimentalka ama qaybta ha ahado igneous-ka samaysanka uu samaysmo metamorphic rock-kaasi iyo macdanta uu dhalaya waxay ku xiran tahay kolba chemical composition-ka yaalla meesha markaan leeyahay chemical composition waxa weeyaan curiyaasha meesha yaalla ee pressure-kaas iyo cadaadiskaasi ku yimi ayaa isbedelka markaasi nooca macdanta ah ee samaysmaya metamorphic rock uu sameynaya ay ku xiran tahay samaysanka uu samaysmayo metamorphic rock-kana uu samaysmayo maaha wuu milmaya macnaheedu milan ayaa dhacaya maaha laakiin waxa laga yaabaa qayb kamid ah in ay milan samayso milan ayaa dhacaya maaha laakiin waxa laga yaabaa qayb kamid ah in ay milan samayso tusaale ahaan oo kale aan ku bixino qaabka markaynu soo qaadano kale SiO2 silicate mineral ama quartz oo kale ndhaha density-geedu waxaa noqday 2.65 weeyaan gram per cubic centimeter wuxuu ku transform karaa wuxuu isku bedeli karaa face cusub oo ah sterified buu isku bedeli karaa oo marka hore density-gii maadaama aynu soo sheegnay uu lahaa markuu ahaa quartz waxa uu noqon karaa markaasi sterified-kaasi density-gina dib u duwaya kii hore quartz maxay ahayd 2.65 sterified-kuna muxuu noqonayaa 4.29 gram per centimeter cubic kii centimeter cubic ba wuxuu noqonayaa 4.25 imso halkaasi bood ugu dhawaantii hal intuu ahaa in lamid ah ayaa dee ku darsantay macdanta hore u jirtay ee awqaabkeeda ay ahayd inuu dhalo rogo oo macdan kale uu ka dhigo laga yaabo inuuna temperature-keedii marka hore ay ku samaysnaa una gaarsiin kadibna sideeda ay ugu survive garoodo ay ugu badbaado oo iyadoo sideeda ay iska jirto qaybo laakiinse temperature-keedii si uu dhaafiyey ayaa laga yaabaa inuu melo dabadna uu macdan kale oo ka sameeyo iyadoo markaa aynaan ujeedin in aynu qaabka chemical ahaan ay isku bedelayo dhagaxan metamorphic aynaan ujeedin oo aynu uga jeedno un dee imika lecture-kan concept guud ahaan un inaan fahno qaabka markaynu soo qaadano kale SiO2 silicate mineral ama quartz oo kale ndhaha density-geedu waxaa noqday 2.65 weeyaan gram per cubic centimeter wuxuu ku transform karaa wuxuu isku bedeli karaa face cusub oo ah sterified buu isku bedeli karaa oo marka hore density-gii maadaama aynu soo sheegnay uu lahaa markuu ahaa quartz waxa uu noqon karaa markaasi sterified-kaasi density-gina dib u duwaya kii hore quartz maxay ahayd 2.65 sterified-kuna muxuu noqonayaa 4.29 gram per centimeter cubic kii centimeter cubic ba wuxuu noqonayaa 4.25 imso halkaasi bood ugu dhawaantii hal intuu ahaa in lamid ah ayaa dee ku darsantay macdanta hore u jirtay ee awqaabkeeda ay ahayd inuu dhalo rogo oo macdan kale uu ka dhigo laga yaabo inuuna temperature-keedii marka hore ay ku samaysnaa una gaarsiin kadibna sideeda ay ugu survive garoodo ay ugu badbaado oo iyadoo sideeda ay iska jirto qaybo laakiinse temperature-keedii si uu dhaafiyey
ayaa laga yaabaa inuu milo dabadna macdan kale oo ka sameeyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.